baranaysaa Qur'aanka Kariimka ah waxayna qaadatay diinta Islaamka. Jennifer Grout waxay dhalatay sanadkii 1990 magaalada Boston ee dalka Mareykanka, waxayna ka dhalatay qoys ehel u ah fanka. Da'deeda oo yar ayaa waxay baratay aaladaha muusikada. Waalidiinteeda ayaa ahaa kuwa tuma agabka muusikada ee loo yaqaano kamanka iyo piyaanada. Jennifer Grout waxay muddo dheer ay ku heesi jirtay heesaha bulshooyinka Carabta, waxayna tumista muusikada ay ku soo baratay jaamacad ku taala dalka Canada. Marar badan ayay fankeeda ku soo bandhigtay qaar ka mid ah dalalka Carabta. Qur'aanka Kariimka ah ayay akhriyi jirtay ka hor intii aanay qaadan diinta Islaamka, iyada oo ka baranaysay habdhawqa xuruufta luqadda Carabiga. Sanadkii 2012 ayay Jennifer Grout safar ku tagtay dalka Morocco oo dhaca waqooyiga qaaradda Afrika. Intii ay ku sugnayd dalkaasi ayaa waxa ay go'aansatay barashada culumta diinta Islaamka, xilligaasi oo ay haysatay diinta Kiristaanka ilaa ay ka islaamaysay sanadkii 2014. Su'aalo dhowr ah oo laga weydiiyay qisada ka dambaysa qaadashadeeda diinta Islaamka ayaa waxay ku sheegtay inay ku qanacday diinta Islaamka. Intaasi kadib, baraha bulshada ayaa ay si weyn uga soo hormuuqatay iyada oo akhriyaysa qaar ka mid ah aayadaha Qur'aanka Kariimka ah. Bulshooyinka Carabta ayaa si weyn u dhageysan jiray heesaheeda, waxayna ka qayb gashay tartan hibeed ka dhaca dalalka Carbeed kaasi oo loo yaqaano Arab Got Talent, iyada oo ku soo baxday kaalinta labaad ee tartankaasi, waxayna sharaf iyo sumcad weyn ay ku dhex yeelatay bulshada Carabta. qisadeeda ah qaadashada diinta Islaamka oo si weyn loogu hadalhayay baraha bulshada ayaa Jennifer Grout waxay isbarbar dhigtay diintii hore ee Kiristaanka ee ay haysatay iyo tan ay qaadatay waa Islaamka ayaa waxa ay ku sheegtay in diinta Islaamka ay ku heshay xasilooni iyo deganaan diinta Kiristaanka ilaa iyo diinta Islaamka.